ciidanka iyo tabashaadkii ciidanka wali hadda waxaan u haray waxqabadkii iyo presentationkii ciidanka BNPF sidoo uu shaqeeyo structure-kiisa nidaamkiisa wixii soo dhanaa soo bandhigno هذا وحال اللي مسؤول الرنجي أما قوة الشيش برشلة أرجع الشيش بالعيال هذا هو تاتي كلمة سيغف في سطور لها كل شيش توصل لها كأغراض باللغة يعني قلب كي رئيسي بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أشكر حكومة بورتلاند دعمها المتواصل لمشروع BNPF ونتطلع إن شاء الله دائما وإحنا موجودين هنا لدعم حكومة بورتلاند والصومال بشكل عام ودعمنا مستمر للسنوات القادمة إن شاء الله. شكرا. الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. مركب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبات كان الله محله وحي أنا والله هوري ما خطبتي يقول لي لكن هدنا إن شاء الله وحنكون علينا ما دام أنا أرجعني حقبتك عيدا ك إلى هذا أباها بنتلان شنتي سنة لصور في هذه ما نقول فرح سنة هي خبرنا نكسب بوها وأنت سوى لسي دواتان waxaan kale oo ku faraxsanahay ciidan tababar fiican qaba inaan aragnay waxaan u mahadcelinaynaa ilaahay sahlay in ciidankaas la sameeyo marlabaadkan waxaan u mahadcelinaynaa dawladda Imaaraadka Carabiyada Mutahada shacabkeeda iyo shuyuukhdeeda khaasatan Sheekh Khalifa ibn Said taageerada iyo dacmiga ay u fidinayaan ciidamada Puntland aad iyo aad baan shacabka uga mahadcelinaynaa waana ku mahadsan yihiin mar labaad waxa kale oo mudan cid kasta oo ka qayb qaadatay saraakiisha shaas aad baan ugu faraxsanahay horumar wanaagsan weeye waana waxay kale oo noo sheegeen inay horumarin doonaan ciidanka oo kordhin doonaan insha Allah wixii xagga dawladda oo iyana aad uga shaqeysay oo madaxweynaheedu ku mahadsan yahay Dr. Abdiwali wixii xagga wada shaqeynaa waa la sixi doonaa wixii badaha waa la hagaajin doonaa wixii shuruucda baarlamaanka looga baahdana waa la hagaajin doonaa haddii alla idmo wax kasta oo ma dhamaystira inta haddaan ku koobo wasiirkooda oo mahadsan yahay annaga lafteedu baacadka waxaan ugu khudbaynaynaa askar baan nahay oo meesha waxra askareed in la dhiso meel kale lagu khudbayo loo baahan yahay mar labaad iyo mar saddexaad baan waa ka mahadcelinaynaa ciidankaasu dariiq sax ah oo horumar leh buu ku socdaa waxaan leenahay in asal ahaan laga dhigo ciidan dhammaystiran oo isu dheelitiran dhinacyada dawladda Puntland gobolada oo dhan oo la habayo wixii hore u jiray iyo wixii hadda jirayba in la isku hagaajiyo oo taladana wax laga siiyo cid kasta oo mudan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta aragno ciidan Puntland oo qalab leh oo wax soo qaban karo waxaan leenahay waan guul ummadda Soomaaliyeed soo heesay gaar ahaan kuwa reer Puntland haday ahaan lahayd burcadbadeeda haday ahaan lahayd illegal fishing kalluumaysiga sharci darrada ah oo intaba wax laga qabtay waxaan si gaar ah oo guud ahaan oo ciidanka u mahadcelinayo waxaan si gaar ah halkan uga mahadcelinayaa fariiqa joogay isku sugan bayska isku sugan ciidanka mariiniska oo joogay oo muddaan kormeer ku maraayay si fiican ugu soo dhaweeyay meel ka fog magaalada isku sugan meel ka fogna ay gaarsiiyay oo hadda ku sugan bayska si gaar ah muxuu ahayd iyaga baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay sanad wanaagsan guud ahaan ciidanka BNPF-ta Puntland waxaan leeyahay sanad wanaagsan runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkii soo bandhigeen ciidamada badda Puntland BNPF xaqiiqatan waxa muuqata ciidamadu inay ku eekeen kaliya la dagaalanka burcadbadeeda laakiin ay qabtaan hawl walba iyo wax kasta oo soo wajaha Puntland waa ciidan u noqon kara Puntland halbowle waxa ka muuqata tababar iyo training badan iyo carbis badan ee mareen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo waa bogaadinayaa saraakiisha ka qayb qaadatay iyo dawladda Imaaraadka Carabta oo runtii aad iyo aad uga qayb qaadatay
gacanta ku haysa barnaamijkan waan u celinayaa xaqiiqatan waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan baan leeyahay sanadkiisa dambe bashbash iyo barwaaqo ilaahay ku gaarsiiyo horumarkooduna inuu sii siyaado baan u rajaynayaa